muddo fara badan oo qayladhaan xoogan loo jeedinayay bulshada afka Soomaaliga ku hadasha ee muxsiniinta ah si ay u soo gacan siiyaan Barre Xasan oo kamid ah bukaanada sida weyn xilligan ugu xanuunsanaya Boorama isla markaana xanuunka haya uu yahay mid jirka kaga dhacay wuxuuna xanuunkan sababay inuu waayo aragtida iyo maqalka labadaba Barre Xasan waxa uu ku dhaqnaa degmada Lughayo ee gobolka Nowdal waxaana muddo kadib loo soo qaaday magaaladan Boorama ee caasimadda gobolkan si loogu daaweeyo halkan walow dhaqaatiirta ka howlgasha Boorama ay ka deeriyeen xaaladiisa caafimaad iyagoo sheegay inuu u baahan yahay dhakhtar dibadeed qaar kamid ah walaalaha qurba jooga ee muxsiniinta ah ayaa waxa ay ka soo damqadeen xanuunkan xoogan ee Barre Xasan haysta waxayna u soo direen deeq lacageed oo maanta la guddoonsiiyay bukaankan mahad ilaahay baa iskala tooriyada dambaba maanta waxaan la joognaa adeero Barre Xasan oo aan mar hore u nimid oo ogeydeen inaan u soo weydiinay tabarruc ummadda muslimka ee meel walba joogta waxaana soo gaaray $400 laakiin iyaga rabbi bay soobintii soo gargaartay adeero Xasan ee ilaahay dartii ku soo gargaartay Barre Xasan marka waxaan leenahay $400 baan guddoonsiinaynaa 1 2 3 $400 baan adeero guddoonsiinaynaa waxaan leenahay ilaahay miisaanka xasanaadka ha idinku daro meeshaad ka soo saarteenna wax ka badan Allah idin geliyo maalinta la qatay la qaawan yahayna ilaahay ha idinku abaalgudo adeero guddoon lacagtii wataasi sida u qabaadeen Cabdi Fataax Ahmed Hadwanaag News magaalada Boorama